maanta reer awdal ee landheeranimadeenu waxay ku xidhantay kaarka Komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa maanta ka daafuray magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal isdiiwaangelinta munaasabad ballaaran oo lagu qabtay hotel rays ee magaalada Boorame ayaa waxaa ka soo qayb galay salaadiin waxgarad aqoon-yahan xisbiyada mucaaridka iyo mas'uuliyiin kale maamulka gobolka iyo kan degmada Boorame waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta komishanka doorashooyinka ee gobolka Awdal iyo waliba sidoo kale mas'uuliyiinta kale ka soo qayb galay waxayna yiraahdeen maanta reer awdal ee landheeranimadeenu waxay ku xidhantay kaarka haddaynu kaarka qaadanana dawaynu soo bixi oo waxaynu sheeganaynaa run noqon haddii kalena tartankii aynu ku jiray waynu ka hoos baynu uga noqonaynaa ku tala gala marka guud ahaan dardaarankeenu waxa weeye kaarka ha la qaato maanta waa maalin laga midaysan yahay xusbi maaha urur maaha wax waxa laga midaysan yahay kaarka la qaato guud ahaan gobolka Awdal marka soo dhaadhaco waxay ka dhici doontaa 22 goobood oo ka kooban 4 degmo doorasho oo kala ah degmada Sayla oo ah 5 goobood 5 goobood waxay noqonayaan waa Sayla oo xaruntiya Looyacado Habaas Xariirad iyo Fiqi Aadan 5 goobood ayay ka shaqayn doonaan howlwadeenadu dadkuna iska diiwaan gelinaya degmada Boorama waa 10 goobood oo boon qulijeed ونقبر قرية عون قربهادلي شيخ عثمان شيخ علي جوهر أردالة إيو أحمد سلام أما ديكسي قورقاب ودو سالدقة برية دقمدا باكي وحي كسو عندهم تا أفر قوبور أو كمدا دلا على حي إيا حرون تباكي حاجو أفر تاسل اللي سكدي وانقلي دونا دي لاردو دقمدا لوكايا waxay ka dhici doontaa 3 goobood oo Gaarisa Garbada iyo xarunta Lugaya 22 goobood ayay ka socon doontaa muddo qaarkood ay ka socon doontaa 15 maalmood qaarna ay ka socon doontaa muddo 30 maalmood oo ah laba phase ka hor 15 iyo goobaha inta badan xuduudaha iyo magaalo madaxyada oo ay 30 ay ka socon doon 3 maalmood soo waqti dhaweeyo waxaan leeyahay intii horeba loo yiri waxaan leeyahay Soomaaliland guud ahaan si cad isku diiwaan galiyay waxaan leeyahay gobolkan Awdal ee maanta afka odayaasha ku hadlayo waxaan leeyahay meel joogtaanba isku diiwaan galiyay wallahi waa la tartamayaa labada walaalaha tartan ka dhamaan waaye gobolaynu ishaynaaye wali meel baan aad isku sii haynaaye يعني اسكي علينا اسكا دو oo aynu guddiga dhisha iska dhigo magaalada iyo gobolka Awdal guud ahaanba numberka isdiiwaan galiyay runtii iyo population-ka ku nool marka la qiyaasayo aad bay u kala badan marka waxaan u baahanahay bulshada dhaqanka iyo dadka odayaasha ah iyo xusbiyada runtii biritoole iyo ururada codka bulshada ka dooraya inay maanta doorkooda qaataan oo ay maalinta codka ay doonayaan bulshada aanay hortagin maanta marka la diiwaan gelinayo goob iyo degmo runtii iyagana ay u hortagaan wixii jira gobolka la soo saaro taasal maanta isugu nimid waa wax diinteed iyo shariicadeedna oo ogashahay walaalayaal nafteed iyo tiinaba Allah laga boqo haddaad magacaaga qori weydo de kuma jirtid reer Boorame hadda la soco anu isma diiwaan gelin haddii khayraad la keenana inaad ugu horeyso u hor aragto maalinta la isdiiwaan gelinayana had iska maqnaato ma yasiir taasi ma soconayso waxay ahmiyad muhiim u leedahay qaranka waxay u leedahay gobolka waxay u leedahay bulshada iyo ummadda deegaan kasta Soomaaliland deganba waxaynu ka warqabnaa tirada maanta isdiiwaan gelisay waxay kaalin mugla ka qaadanaysaa tirakoobka guud ee qaranka ka gobolka iyo ka degmadaba marka dhammaan bulshada waxaan ku baraarujinaynaa waliba anagu gaar ahaan ardaydaanu ka wakiilkanahay inay yihiin cududda iyo tiirasha marka laga hadlayo isdiiwaan gelinta in ay muhiimad gaar ah siiyaan si gaarana looga wada hawl galo maanta goobteedii baynu joognaa iyo goorteedii waxaan aad iyo aad u jeclahay in qolada qurba jooge marka dhanka xun loo fikirayo bulshada soo caawisay inay maanta soo caawiyaan bulshada si ay isku diiwaan geliyaan
marka dhanka wanaagsan loo fikrayo aad baan u rajaynayaa maanta inuu gobolku horumar dheer ka gaaro salaadiinta kulli culays badan baa saaran inta maanta u hadhayna ha soo saaraan jurigooga culays badana saaraan miyi iyo magaalaba ha laga soo kaxeeyo inuu gobolkeenu uu ballaadhan yahay dadka aan qaadan waxaan u sheegayaa oo baaq dheer iyo baaq qaaban baa u dirayaa in la qaato kaarka oo la isdiiwaangeliyo gobol ahaanna waxaan u baahanahay inaan si guud oo abaabulan oo xoog leh oo tartana oo walaalnimo oo calool furan aan uga qayb qaadano jaaniskaas oo laga faa'iideysto gobolkay dan u tahay oo Soomaaliland bay dan u tahay oo meel walba danbay u tahay aad aan u soo diiwaan gelino oo aan isxil saarno dadkuna inay jaaniska ka faa'iideystaan ku yar iyo ku weynba ayaan ugu baaqaynaa dadweynaha reer Awdal iyo gaar ahaan dadweynaha degmada Boorame waxa laga doonayaa inay isdiiwaan geliyaan kaarkoodana ay qaataan bulshada Awdalna baaqaan halkan ugu dirayaa waxa weeye guud ahaan ayaan bulshada u dirayaa kow nabadgelyadu waa muhiim inaynu nabadgelyada ilaashano talabaad waxa weeye in aynu hadii beedankiisa leeyahay dadaalka aynu gelinayno aynu laabno oo codka aynu doonayno aynu halkan ka soo saarno afayeenka komishanka doorashooyinka ahna komishaneer ka tirsan komishanka doorashooyinka wuxuuna faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay inta cisho ay ka socon doonto gobolka Awdal wuxuuna yiri waxaan insha Allah anagu idin ballan qaadaynaa haddaan nahay komishankii doorashooyinka qaranka aniga tiimka kale ila shaqeynayaaba inaanu hariyo habeenba si habsamiya oo dadaal leh aan ugu shaqeyno sidii dadka aan u diiwaan gelin lahayn qodobka labaad diiwaan gelintani waxay diiwaan gelimii hore kaga duwan tahay laba qodob waa qodobka koobaad waxaanu yareynay goobihii la iska diiwaan gelinayay oo si aad ogtiin 10kii goob doorasho horeba amba 10kii goob diiwaan gelineeda horeba hal goob baa imka laga soo qaatay laakiin waxa la dheereeyay waqtigii oo halkay goobtu ka ahaan jirtay 3 cisho qaarna la yiri reebi jiray imka goobaha toogu yar 15 cisho oo leysa qaarna 30 cisho ayay oolayaan tusaale ahaan shanta goobaad ee magaalada Boorama dhex yaala waa min 30 cisho marka waxaan ugu talagalay dhammaan dadku inay isku soo wada gaaraan si fiican looga faa'iideysto waliba waxa inta dheer shanta goobaad ee magaalada gobolka 22 goobaad buu leeyahay 13 kamid ah waxa la socdaa in qofka loo bedeli karo inuu degmo doorashadiisa hore ka bedesho oo uu kale u bedesho sidoo kale haddii qofku kaarku ka lumay markuu shuruudihii buuxiyo in isagana kaar cusub la siiyo 13 goobood oo kamid ah ayaa la socdaa kidka labaad marka qof dhammaan xuquuqihii ay u dhameystirmeen codayntu inuu codeeyo maalintaasi waa xuquuqaha asaasiga dhanka kalena waxay kamid tahay waxyaabaha keena doorashooyin xor iyo xalaal in la qabto Ayb Maxamed Kaan Shucaabiga telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Boorama